xaggee ayuu ku dambeeyaa musharaxii sida cad isku soo taagay inuu yahay hogaamiyaha maamulka Jubbaland waase senator Ilyas Gaboose qofka aan ka hadlayo maxaad ka ogtahay xogaha qarsoon ee magaalada Kismaayo ka socda muxuuse uga hadli laayahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Jubbaland xaaladda siyaasadeed ee cakiran waa laga yaabaa inaad isweydiinaysid halkan ayaan kugu faahfaahin doonaa fadlan waxaan ka codsanayaa markuu ugu horeeyo ee uu ku soo gaaro muuqaalka fadlan like noo taabo oo ama like gare saaxiibo fara badan si ay u arkaan muuqaalkan siina share gare si meel dheer u gaaro haddii ay tahay markii ugu horeysay ee uu ku soo gaaro boggeenana fadlan ka mid noqo oo na soo follow gare saaxiibada sida maalinlaha ah wararkeena halkan aan ku baahino ula socdo aad uga mid noqoto mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland ee uu hadda hogaamiye u yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland ee isagu isku caano shubay waqtigan la joogayna dadka reer Jubbaland hadda uu u yahay madaxweyne halka dawladda Soomaaliyana uu u yahay wanted misana markaasi qof ay amar u jirtay ama warqad ay u jirtay in la soo qabanayo wuxuu duugay mise dhulka hoostiisa ka mariyayba laba mas'uul iyadoona markaasi u muuqato waqtigan la joogay in ay markaasi qudhoodu naftoodu ay cabaqdin ay u qabaan waase kan koowaade senator Ilyas Gaboose oo ahaa ninkii markaasi isku soo taagay iyadoo oo aananba wili qabsoomin doorashadii maamulka Jubbaland oo isagu isku sheegay ama markaasi u muuqday mucaaradkan ay u codeeyeen inuu yahay madaxweynaha waa markaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland ama hogaamiyaha maamulka Jubbaland hal maalin ayuu soo hadlay isaga oo yiri cidna iskuma aanan dhiibin mana isxirin haddana waxaan joogaa magaalada Kismaayo gurigeyga ayaa nabad jooga kadib lama arag halka jaaniyo cirib meel uu dhigayba laakiin Kismaayo ayuu ku sugan yahay oo se wuxuu u muuqdaa inuu yahay xabsi guri taasi oona waqtigan la joogay ee caqabad weyn ay ku tahayba isaga laftirkiisa maalmihii hore inta ay socotay ololaha doorashada aad ayuu u hadlayay warbaahintina si weyn ayaa loo hadalhayay laakiin waqtigan la joogay lama hadalhayo naftiisa ayuu baqdin u qabaa oo welibana afkiisa ayuu ka qirtay inuu isaga tanaasulay laakiin waxay u muuqataa waqtigan la joogay in markaasi qatar uu ku sugan yahay oo Axmed Madoobe qudhiisaba markaasi uu halis u gelin karayo aan ka tagno kaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland waa markaasi maamulka Jubbaland ninka hogaamiye ninka ku xiga illa min hada yawm waqtigan la joogayna kama uusan hadlin xaaladda Soomaaliya shir kastana uu ka soo muuqdo sawiridiisa waa lagu arkaa waa laga yaabaa inaad adigu isweydiinaysid waxa sababay inuu hadli kari waayo ama markaasi warbaahinta inta uu la hadlo uu u sheego waxa uu aamusan yahay misana markaasi xaaladan geeska Afrika ee markaasi ololeyso ama xiisadda Soomaaliya uu isagana aaraadiisa siyaasadeed ugu oran laayahay sida xogo hoose aan ku helnay dhammaan mas'uuliyiinta ama markaasi dadka madaxda ah ee halkaasi jooga magaalada Kismaayo ee Jubbaland dhammaantoodba waxa hoos dhigay misana markaasi warbaahinta ka mamnuucay hogaamiyaha hadda halkaasi jooga Axmed Maxamed Islaam oo isaga kaliya ayaa waqtigan la joogay meeshaas wixii warbaahin loo baahdo misana wada hadal loo baahdana kaga hadlaya waana arinta la yaab kale ee ay bulshadu ama dadiyoogu ay si weyn isku hadal weydiinaan ama ay u hadal hayeen inaga haddaan nahay warbaahinna qof kastaay ee xaalad siyaasadeed ama xaalad amni cabsi ee wajahadaba waxaan diyaar u nahay inaan bulshada horkeeno si markaasi xogtiisa iyo xogaha la helayba aan idinku wadaagno ama markaasi aan u baahino madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa mas'uuliyiinta ama madaxda maamulkaasiba dhulka hoostiisa dhigay kadibna ka mamnuucay qof alaala qofkii u arka inuu markaasi ka aragti duwan yahayna ka mamnuucay inuu warbaahinta ka soo hor hadla ama ka soo muuqda aaraadiisa siyaasadeedna halkaasi uu ka jeediyo taasi ayaana waqtigan la joogay keentay inuu warbaahinta inuu soo hor istaago oo uu ka hadli kari waayo Axmed Madoobe ayaana talaabooyin culus u qaaday dhammaan madaxdii halkaasi joogtay iyo waliba sidoo kale taliyaasha ciidankaba intooda inuu markaasi ka mamnuuco warbaahinta si ay markaasi arrimahooda siyaasadood ay hoos ugu dhigaan tiisana mar walba sare ugu qaado waxaana u muuqata waqtigan la joogay inuu yahay in markaasi qof xabsi guri oo kale oo aana markaasi aragtidiisa iyo mowqifkiisa iyo cidda taageero u yahay iyo inuu dawladda garab u yahay inuu maamulkaasi garab u yahay uusan wali markaasi ka hadlin ama ka hadli kareeninba
waana sababaha keentay inaan muuqaalkan idinla wadaagno sii sheergaree meel dher nala gaarsiiya si dadka Soomaaliyeed u arkaan waxyaabaha ka socda dalkeena ee Soomaaliya mahasanidiin